waan ka xumahay halkan mucjiso laguma iibiyo. Waxa ay aaday farmasigii. Lacagtii ay wadatay ayaa waxay dul saartay miiska. Inanta yar ee meesha taaganna ma aysan arkaynin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada saaxiibayaal, waa mar kale iyo muuqaal cusub. Waxaan ku soo qaadan doonaa maanta muuqaalkeena qiso. Waxa ay ahayd aabi gabadh yar oo yar. Waxa ay la nooleed walaalkeed oo ka yar iyo labadeeda waalid. Waxay ahaayeen qoys aan waxba haysanin oo iska faqiira, wax adduunyana aan haysanin. Aabi maalin maalmaha ka mid ah waxa ay maqashay waxa ay la yaabtay. Waxa lagu sheegay walaalkeed xanuun aad u daran. Hooyadeed iyo aabaheed waxa ay bilaabeen in ay ka baxaan gurigii, iyaga oo markaana u guuray guri ay kaliisu aad u yar tahay. Waxa ayna isku dayeen in ay lacag ururiyaan si ay wiilkooda ugu daaweeyaan. Aabi, hooyadeed iyo aabaheed ayaa waxay maqashay maalin maalmaha ka mid ah iyagoo ku sheekaysanaya, wiilkeena mucjiso maahane wax kale daawo u noqon maayaan. Aabi way carartay oo qolkeygii ayay gashay. Waxa ayna soo saartay waxoogaa lacag oo ay meel ku urursatay. Waxa ay aaday farmasigii. Lacagtii ay wadatay ayaa waxay dul saartay miiska. Isla markaana farmasiga waxaa joogtay gabadh, laakiinse nasiib daro gabadhu aad ayay u mashquulsanayd. Inanta yar ee meesha taaganna ma aysan arkaynin. Aabi waa ay iska taagneed iyada oo markaas sugaysa in mar uun ay u soo jeesato. Aabi oo waqtiga uu ku dheeraaday in badan taagneed meesha ayaa waxay tidhi, mayna meesha cidi joogin. Gabadhii farmasiga joogtay ayaa si cadhalaynta u soo eegtay. Waxay ku tidhi, miyaadan arkaynin in aan walaalkay la hadlayo oo 2 sano aan kala maqnayn? Aabi iyada oo si degan u hadlaysa waxay tidhi, anigaba walaalkay ayaa iga xanuunsanaya. Waxa aan rabaa in aan u iibiyo mucjiso. Gabadhii ayaa yaabtay. Waxay tidhi, maxaad ka wadaa? Ma ku fahmin. Aabi ayaa hadalkii ku celisay. Waxay tidhi, waxaan u baahanahay in aan walaalkay u iibiyo mucjiso, walaalkay oo aad u xanuunsanaya. Gabadhii farmasiga iibinaysa ayaa waxay tidhi, waan ka xumahay halkan mucjiso laguma iibiyo. Gabadhan farmasiga iibinaysa walaalkeed oo ag taagnaa ayaa wuxuu ka soo dhex galay hadalkii. Waxa uuna ku dhahay, imise lacag ayaad wadataa? Aabi waxay ku jawaabtay, $1 ayaan wataa. Haddana waxa uu weydiiyey su'aal kale. Waxa uuna ku dhahay, maxay tahay mucjiso uu walaalkaa u baahan yahay in aad u iibisana aad rabto? Aabi waxay tidhi, walaalkay waxa uu u baahan yahay qalliin. Waalidiinteeduna ma awoodaan lacagtii ay ku geyn lahaayeen dhakhtar, marka waxaan rabaa in aan u iibiyo mucjiso. Inankii ayaa wuxuu dhahay, waa sax, mucjisada aad raadinaysana waa aniga. Inamari oo xafadiina igee. Aabi waa ay kaxaysay. Albaabkii ayay garaaceen. Markii laga furay, wuxuu noqday digtoorka ugu caansan magaalada. Aabi oo aad u faraxsan ayaa waxay tidhi, hooyadii aabbo, waxa aan soo helay mucjisadii wiilkeenu ku caafimaadi lahaa. Digtoorkeena waxa uu u soo bandhigay in uu wiilkooda ku samayn doono qalliin bilaasha. Wiilkii yaraa waxaa lagu sameeyay qalliin, sidaa ayuuna ku caafimaaday. Waxaan u baahannahay mararka qaar in aynu carruurteenna aanu dhegaysano afkaartooda, waxyaabaha ay samaynayaanna in aynu ku ixtiraamno. Waxaanu u baahannahay in aanu dhegaysano hadalladooda. Marka ay ficil wanaagsan sameeyaanna in aynu soo dhoweyno ayaan u baahannahay.